weligaa ayaa lahaa hooyadaa qofkii nii dhexgalo weligaa ha cafinin qof hooyo ixtiraamaya haddaad aragtane madaxa meelka hooseesa ha saarin darajada ugu weyn waxaa leh halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah Subar Carab muuqaalkan waxaan uga hadlayaa hooyo xaqiiqdii hooyo laguma soo koobi sheeko iyo qiso iyo hadal iyo buug intaba waayo hooyo dhammaanteen ayayna soo korisay anagoona socod aqoon dabka iyo biyahana kala garanaynin iska daa inaan soco ayay noo soo dhabar adeegtay ayna soo korisay qof walba oo dunida joogo hadday hooyadii u noosho iyo hadday dhimatay wuxuu ogyahay qiimaha hooyo ee leedahay xaqiiqdii aniga waxay soo korisay hooyadii waxay ahayd macalimad laakiin anagu darteena ayay isaga daysay macalinimada xilligaa waxay u arkaysay lacagta ka qaadato macalinimada anagu inaan farxad ku helaynin waxaan u baahanahay inay u goynaynin darteena ayay shaqo u bilowday waxay gashay booskii hooyo iyo booskii aabbo xaqiiqdii dad badan oo aabbahooda iyo hooyadooda ay u joogaan waxaynan helin ayaan helnay dadka yaraanteeda yaqaan ama xaafadeena la degnaa way og yihiin xaqiiqdii wax walba ayay noo soo bisay farxad walba ayayna siisay waxay noo soo korisay sida ubad loo koriyo sida ugu qiimaha badan heer walba oo maanta aan taaganahay xaqiiqdeeda ayaa sababteeda lahayd markaad haysato hooyo wanaagsan nolosha jacaylka iyo aqoonta wax ka taqaano diinna leh xaqiiqdii adiguna waxaa noqonaysaa ubad dadka ka waaweyn ixtiraam qadariya weligay ma gudi doono abaalka hooyaday adduunyada waxaan ugu jeclahay qofka hooyaday ixtiraam adduunyada waxaan ugu necbahay qofkaana hooyaday ixtiraamin waxaan adduunka ugu necbahay waalid iyo caruurtiisa qofka kala geeya waxaan adduunka ugu necbahay qofka waalid iyo caruurtiisa isku dira xaqiiqdii leema tuso qof walboo dembi iga galo xaqiiqdii waan cafiyaa kiin hal qof ma cafiyo mana cafin doono waa qofka waalidka iyo caruurtiisa isku diro aniga xaqiiqdii dareenka hooyo ma ahan mid qiyaasi karo sida ay tahay waxaa jira caqabada badan marmarka qaar idinkala fogeynayo waxaa jira dad fursadaha ka faa'iidaysanayo laakiin xaqiiqda waxay tahay jacaylka qalbiga marna ma dhammaado suuqa inaad tagto waad soo iibsan kartaa wax walba aad rabto laakiin qof si qalbiyeed inuu ku jeclaado ma ahan waxaad iibsan karto qof walba hooyadiisu nooshahay geed weyn oo ku harsado laakiin nolosha way iska caqabo badan tahay waayo waxaa jira dad badan oona aqoonin qiimaha ay leedahay hooyo ixtiraamka ay leedahay hooyo darajada ay leedahay hooyo xaqiiqdii qof haddii naf loo huraayo hooyo ayaa mudan aniga hooyaday waa indhahayga waa noloshayda waana farxadayda xaqiiqdii waxaan rajaynayaa qof walba oo maanta hooyadii u nooshahay wuxuu haystaa fursad waan ogahay waana dareemi karaa inna marka qaar caqabad ay ku hor istaagayaan laakiin jacaylkaad u qabto hooyo caqabad walba oo jirto waxaa isku daydaa inaad ka horgudubto noloshu waa imtixaan waayo dadkii kugu dhowaa ayaa marka qaar kaa fogaanayo marka qaar nolosha ayaad eedeynaysa oo waxaa nolosha ku tilmaamtaa garan weynaysaa xilligaan farxadda haysanno ma xasuusanno inay murug ka dambayso laakiin xilliga murugta inay haysato waxaan xilligaa xasuusanaa farxaddii shalay aan helnay waa inaad ogaad noloshu inay tahay farxad iyo murug intaba waxaan leeyahay qof walba oo waalid jecel qof walba oo hooyo jecel hooyada waa lama huraan hooyada waa aasaaska nolosheena hooyada waa farxadeena hooyada waa awooddeena hooyada waa kartideena anigu hooyo waxaan ku qeexo ma aqaano hooyo abaalkaaga marna ma gudi karo noloshayda inta ka dhiman abaalkaaga ma gudi karo heerka aan maanta taaganahay xaqiiqdii adigaa sababteeda leh abaabintaadii quruxda badnayd farxaddii aad isoo sii daacadnimadii aad igu soo korisay ee mar walba aad idhihi jirtay hooyo dadka kula noolow siwan hooyo dadka kula dhaqan siwan ixtiraami qadarin leh ixtiraam dadka qadari xaqiiqdii hooyo abaabintaadii waa mid dadkoo dhan ay dadka waaweyn hooyo aad bay ii ixtiraam dad adigu ay bari lahayn sida dadka waaweyn loo ixtiraamo haddii aad i bari lahayn sida loola dhaqmo bulshada ma aqaano waxaan ahaan lahaa qof walba oo i yaqaano waxaa iga soo gaarto ammaantaas oo dhan ilaahay ka sugo xaqiiqdii adigaa leh adigana kaaga mahad celinaya darajo walba adduunka aan ka gaaro xaqiiqda hooyo adigana abaalkaaga haya xaqiiq waan ku jeclahay waanan ku jeclaan doonaa inta noloshayda wax walba way dhammaan karaan anigu waan dhimanaya laakiin jacaylka adiga aan kuu qabo weligiisa igama baxayo hooyo jacaylka aan kuu qabo weligiisa igama dhammaano jacaylka aan kuu qabo hooyo waan la geeriyoona jacaylka aan kuu qabo hooyo eelka ayaa la ii geenaya hooyo adduunyadayda ayaa farxadayda ayaa tahay noloshayda ayaa tahay xaqiiqdii hooyo
qof walba hooyadii u noosho qof walba hooyadii la joogto ka faa'iideysto waan ogahay inay jiraan kuwaanan aqoonin ixtiraamka hooyo kuwaanan aqoonin qadarinta hooyo maalin ayay ka shalayn doonaan maalin ayay la murugoon doonaan ee waxba u taraynin cid walba waad ka maarmi kartaa laakiin hooyo kama maarmi kartid si walbaad hanti u hesho si walbaad magac u yeelato si walbaad heer u gaarto xaqiiqdii hooyo kama maarantid waayo fiiri adigoo nin weyna ayay haddana sida ilmihii kale kula dhaqmaysaa waayo hooyo lagama weynaado dhammaan waxaan leeyahay hooyooyinkeena cimri dheer iyo caafimaad allah noo siiyo intay ka xanuunsan tahayna allah u caafiyo intay waalidkooda ka fog yihiin ilaahay iyagoo nabad qaba ha isu keeno inta waalidkooda ka geeriyoodeen allah hooygooda janno firdows ha ugu dhigo waayo qofka hooyo la'aan nool xaqiiqdii dunidoo dhan iftiinkeeda ma arkaayo hooyo waa boqoradda nolosha waa boqoradda adduunka waa bilowga jacaylka waa bilowga farxadda waa bilowga darajada hooyo ku jeclahay hooyo waana ku jeclaan doonaa daawade weliga ayaa lahaa halkani waa hooyga qisooyinka hiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah Subar Carab